wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta inaga mudano waxaad ku soo dhawaataan muuqaal kale oo aad u xiiso badan. muuqaalkani waxaan kaga hadlaynaa taariikhda kooxda kubadda cagta ee Liverpool, balse inta aan muuqaalkan u gudagelin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like dhahdo, sidoo kale aad muuqaalkan sii share gareyso si aan u helno saaxiibo u qalbi wanaagsan sida adiga oo kale. Liverpool waxaa la aasaasay 1892 tartanka hadda ay ka dheesho ee horyaalka Premier League waxa ay qayb ka noqotay 1894. kooxdani waa kooxda labaad ee tartankii Premier League u haysashada badan oo kooxda Man United kaliya ayaa ka badan, laakiin ha iloobin in ay tahay koox ka socota horyaalka Premier League ahna tan ugu champion-ka badan oo 6 jeer ayay haysataa. kooxdani marka laga hadlayo tartanka Premier League waa kooxda champion-ka inta ugu badan haysato. kooxdani waxa ay ku dheeshaa garoonka lagu magacaabo Anfield, waana garoon ay adag tahay inaad halkaas tagto guulna aad ka soo qaadato, oo waxa ay haysataa taageerayaal aad u fara badan. kooxdana had iyo jeer dhiirigeliya. Liverpool ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan waa Rush, kan ugu safashada badan waa Ian Gallagher, kan hal xilli ciyaareed goolasha ugu badan u dhaliyay waa Mohamed Salah, kan champion-ka goolasha ugu badan u dhaliyay waa Mohamed Salah iyo Roberto Firmino, kan tartanka UEFA Champions League ugu gool dhalinta badan waa Steven Gerrard. kooxdani waxaa soo maray ciyaartooy aad u fara badan kubadda cagtana magac ku leh, waxaana kamid ah ciyaartooygaas qaar kamid ah haddii aan halkan ka xuso: Jamie Carragher, Fernando Torres iyo xidigo kale oo aad u fara badan. Liverpool xidiga ugu qaalisan waa Virgil van Dijk, kaasoo ay kasoo bixisay lacag dhan 75 milyan. xidiga ugu badan ee aydan ay iibisay lacagaha ugu faraha badan ee ka heshay waa Philippe Coutinho, kaasi ay ka iibisay kooxda Barcelona ku dhawaad lacag 140 milyan. xidiga kooxda Liverpool uu hat-trick badan waa Gordon Hodgson, kan rigoorada ugu badan u dhaliyay waa Steven Gerrard. xidiga hal xilli ciyaareed hat-trick ugu badan u dhaliyay waa Rajon. kooxdani lagu magacaabo Reds ayaa sugaysay tartanka aadka u xiisaha badan ee Premier League muddo ku dhow 30 sano, balse sanadii aan soo dhaafnay ayay tartankani soo afjartay. tartamada kala duwan ee kooxdani ka qayb galayso kooxdani ku dheesho Anfield inta badan kooxaha way cabsi gelisaa oo koox si serious u dheesho. Liverpool taariikhdeeda kuma soo koobi karna halkan oo waa koox aad u facweyn, balse muuqaalkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaa. haddii aad dhamaysatay muuqaalkan waa ku mahadsan tahay. inta aan muuqaalka xigo aan ku kulmi doono waa anigoo Ciltira Xasan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.